munaasabad kooban oo xilka ku wareejinayay kusimaha gudoomiyihii hore ee hay'adda barakacyaasha iyo qaxootiga qaranka Maxamed Cabdulaahi Xaaji Cismaan isla markaana uu ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Aamina Saciid Cali taasi oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho kusimaha gudoomiyihii hore ee hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Maxamed Cabdulaahi Xaaji Cismaan ayaa ka hadlay howlaha hay'adda qaxootiga qaranka inaan isu xil wareejinayno maanta sharaf ay tahay waxaan kaliya oo aan dardaaran aan oranayo waxa weeyaan 2 milyan iyo bar dad ah si inta lagu sheegay hadda tirada u dambeysay UNHCR ay caalamku soo bandhigeen iyo hay'adaha UN-ta 2 milyan iyo 600 kun oo Soomaali ah inay barakac tahay oo u baahan in ay barakac ka baxaan iyo intaas oo 100 kun oo Soomaali ah oo wadamada dariska soo socda oo ama ha noqoto dadkii muddada faraha badan joogay Kenya ama ha noqdaan Yemen oo iyadoo hadda nagaba sii dartay laakiin marka hore dadkeena ay shaqo tagi jireen gudoomiyaha cusub ee hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Aamina Saciid Cali ayaa sheegtay in ay ka shaqeyn doonto horumarka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka hay'adda sida aan sheegnay maanta xilkii la wareegay waan ku cusbahay laakiin qorshahaygu waxa weeyaan in Ilaahay hadduu idmo inaan xoog ka saarno si aan ugu gargaarno dadkeena barakacyaasha iyo dadkeena qaxootiga ee laga keenayo wadamada marka kullay hadda maanta waa cusubahay ma dhigi karo qorsho 1 iyo 2 iyo 3 laakiin waa ra'yiyaal badan baan aruurin doonaa kama anigu waxaan aad ugu dadaalayaa inaan xoogayga 200% aan laablaabo itaalkayga wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Isaaq Maxamed Maxamuud ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka inay sii laablaabto howlaha qaxootiga iyo barakacyaasha runtii hay'adan waa hay'ad muhiim ah waxayna muhiim u tahay dadka Soomaaliyeed waliba dadkooda ugu jilicsan ugu dhibaataysan waxay u baahan yihiin adeeg hufan daacadnimo iyo cid ka fikiraysa habeenkii aan u seexan karin maxaa yeelay dadka loo shaqeynayo waa dad banaanka jiifo qaboob dabeel warax ku dhacayso waay dadkaas waxay u baahan yihiin cid u baarnaxdo oo u shaqeyso oo habeenkii hurdada ugu tagto marka waa xil culus dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkanba waday howlo dib loogu soo celinayo dadka qaxootiga ku ah wadamada caalamka Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho